بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kasta aad joogtaan ba allaha wadala dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronavirus-ka iyo cudurro kalaba waa maalinimo talaada ah 26 bisha January 2021 cudurka coronavirus-ka faarisiisa kala duwan ayaa ku siyaadaya meelo badan oo dunida ka mid ah iyadoo talaaladiina ay socdaan xaaladuna aanay qumaneen meelaha qaar dadka la karantiilayo iyadoo weliba meelaha qaarna ay isfarasaareen ciidamada ammaanka iyo dadyowga uu dul qaadan waayay habeenka la doonayo in dadka guryaha lagu hayo qaarkoodna ay ka biyo diideen wadamo badan oo reer Yurub iyo meelo kale ah UK markaynu ku bilowno waxa uu ka mid yahay wadamada viruska cusub uu ka bilowday tan iyo bishii September sanadkii tagay iyadoo laga arkayay inuu ku soo badanayay iyo dhinaca kale virusyada kale ee dhinaca Brazil laga arkay iyo waliba kuwa laga arkay South Africa oo iyaga laftoodana laga arkay wadanka UK qaybihiisa kala duwan laakiin aanu ku badnayn labadaas qaybood warbixintii ugu dambeysay waxa ay sheegaysaa in la arkay ilaa iyo 77 sida uu ka dhawaajiyay xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock oo 77 qof ee laga arkay yihiin kuwa ka soo laabtay waqtiyo kala duwan wadanka South Africa noocaasi ayaa waxa uu yahay nooc ka mid ah noocyada sida degdega ku faafaya iyadoo waliba UK ay joojisay gabi ahaanba dadkii ka imanaya dhinaca South Africa Matt Hancock xogayaha caafimaadka UK waxa kale oo uu sheegay in maalnimadii Sabtidii ay ahayd ilaa iyo 9 qof dadan oo iyagana laga arkay fayrasyada nooca cusub ee laga arkay dalka Brazil oo kamid ah dalalka ku yaala Koonfurta America noocyadaas fayrasyada cusub waxa ay yihiin kuwa iyagu sida degdegta u faafa 30% ilaa 70 marka la barbar dhigo kii asal ahaan ka bilowday Wuhan ee dalka China December 2019 laakiin warbixin ayaa jirta sheegaysa in sida uu u faafayo dadka aan u leynaynin walow ay jirto in ra'iisul wasaare Boris Johnson ra'iisul wasaaraha UK uu jimcihii ka dhawaajiyay inay dhici karto faafidiisuna inay la socon karto inuu si degdeg ah markaasi isaguna dadka u laayo nooc cusub laakiin saynisyahanada UK ayaa arrintaasi ka dabaaqtamay oo sheegay inaan lagu degdegi karin in dhimashadu ay la mid tahay kuwii hore oo kale laakiin ay u baahan tahay daraasad in lagu sameeyo UK warbixinadeeda waxaa kaloo ka mid ah in qoliyaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ururka ay leeyihiin ee ah British Medical Association BMA ay warqad qoraal u qoreen saynisyahanada iyo dawladda UK qaybaheeda kala duwan iyagoo u sheegaya in wax laga bedelo labada cirbadood ee dadka lagu durayo marka ay tahay talaalka cudurka coronavirus-ka waqtiga u dhaxeeya markii hore waxa lagu bilaabay qofka markii maanta la talaalo in talaalka labaad uu sugayo ilaa iyo 3 toddobaad laakiin toddobaadyo kadib ayaa UK waxa ay gaartay go'aan ah inay u dhaxayn karaan labada talaal ee qofka qora lagu talaalayo maanta marka la talaalo uu sugi karayo ka labaad ilaa iyo 6 toddobaad ilaa 12 toddobaad taasoo ka dhigan ilaa 3 bilood inay u dhaxayn karayso dhaqaatiirta British ama dhaqaatiirta Britain ururka ay leeyihiin caafimaad waxa uu qabaa arrintaasi in lagu soo yareeyo ilaa iyo 6 toddobaad ama in ka sii yar iyadoo aanay qumanayn sida ay sheegayaan caafimaad ahaan 12 toddobaad in la sugo fikirkaas fikir lamid oo u dhow waxa qaba laanta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO oo qabta labada talaal ee qofka qura in loo dhaxaysiiyo ilaa iyo 4 toddobaad laakiin saynisyahanada UK waxay ku doodayaan inaan marqaati loo haynin inay wax u dhibayso taasoo ay jeclaysteen inay cirbada koobaad si aad u xawliyo ay ku wadaan si markaas dad badan ay u helaan talaalka koobaad kadibna markaas ay kan labaad u sugaan marka daba la fiiriyo warbixintii ugu dambeysay isniintii shalay waxa ay sheegaysaa ilaa iyo 6 milyan iyo 300 kun oo ruux oo reer UK inay qaateen cirbadii koobaad ama talaalkii koobaad oo ay markaas sugayaan qaybtii labaad guud ahaan UK waxa ay ballan qaaday bisha February inay talaalka guud ahaanba gaarsiiyaan ilaa iyo 15 milyan oo ruux xarumo badan ayaa laga furay England iyo meelo badanba taasoo ujeedku u yahay talaalka in la kordhiyo oo la badiyo laakiin arrinta walaaca muujisa waxa ay tahay in maalintii Sabtidii la arkay dadka iyagoo oxygen-ka u baahan ee ventilator-isku ay ku xiran yihiin in markii ugu horeysay ay tiradu kor u dhaaftay 4,000 oo qof taasoo ah tiro aad u badan marka la barbar dhigo bilowgii cudurkan iyo bishii Abriil ee sanadkii tagay oo tirada dadka mar qura laga arkay in ay u baahan yihiin oxygen-ku ay ahaayeen ilaa iyo 3,300 dadka badan arrintaas ayaa walaac muujinaysa maadaama xaaladaha degdega ee dhibka badan dadka qabaahi ay soo badan maalmihii ugu dambeeyay UK marka la fiiriyo su'aal ayaa jirta la weydiiyay xogayaha caafimaadka ee UK iyo waliba ra'iisul wasaare Boris Johnson la fahantooda su'aashaas oo la xiriirta goorma ayaa la qaadayaa xanibaadaha iminka lagu jiro ee aan guryaha laga baxaynin arrintaas waxay labadaba uga jawaabeen in lagu degdegayo haddii hadda laga jawaabo laakiin ay tahay in la sugo ilaa dhowr toddobaad kadib iyadoo mar walba xaaladda isha lagu haynayo marka daba la fiiriyo UK arrimuhu ma aanay qumanayn waqtiyadii ugu dambeeyay xagga soo riditaanka iyo waliba xagga dhimashada
maalintii jimcihii UK warbixinta ka soo baxday xagga dhimashada waxay ahayd 1401 qof maalintii sabtidii ee ku xigtay tirada dhimashada 1348 maalintii axadii ee ku xigtay tirada dhimashada 610 maalintii shalay oo isniinana waxay tiradu ahayd 592 tirooyinkaas marka la fiiriyo maalin walba waxa ay ku sheegeen qolyaha caafimaadku inaanay ahayn kuwa maalin qura dhintay laakiin ay yihiin tirooyin dadkii hore u dhintay gaar ahaan 28 maalmood ugu dambeeyay oo mar walba in la isku darayo guud ahaan UK cudurku maalintuu bilowday coronavirus ilaa maalinta maanta waxa ka dhintay dad gaaraya 98,561 qof sharikada lagu magacaabo Moderna oo ah sharikadaha dhinaca talaalka soo saara mid kamid ah oo ah mid ka howlgasha ama fadhigeedu uu yahay wadankaasi Mareykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaaday daraasad ay sameeyeen in ay ogaadeen in talaalkoodu uu markaa wax ka qaban karayo qaybaha cusub ee viruska ee xagga UK iyo xagga Brazil iyo xagga South Africa waxay yiraahdeen laboratory iyo lab ayaynu tagnay oo waxaynu eegnay dad badan oo kala duwan xaaladahooda iyo baaritaano aan ku sameynay in talaalkani uu yahay mid wax ka qaban kara waa ka Moderna marka la fiiriyo fayrasyada cusub iyadoo markii hore asal ahaan ay ugu tala galeen kii ka bilowday Wuhan ee dalka China shakhsi isagu u hadlay Moderna waxa uu yiri waxaanu u baahanahay daraasado kale oo dheeraad ah iyadoo waliba aanu eegnay bay yiraahdeen 8 qofood oo lagu talaalay talaalkii koobaad iyo kii labaad laakiin iminka jawaabtii aanu sugayna balse aanu aragno inaanu kalsooni ku qabno in talaalku uu aqoonsan karayo viruska cusub kadibna jirku uu iska difaaci karo arrintaas wali qiil buuxa looma hayo laakiin waxa ka hadlay nin isagu professor oo UK oo lagu magacaabo Lawrence Young oo ka tirsan iskuulka lagu magacaabo Warwick Medical School waxa uu yiri waa arrin walaac muujinaysa maxaa yeelay wax walba isku soo bood looma baahnay waxay u baahan yihiin in baaritaan xoog la sameeyo oo la eego maadaama talaalkan markii hore loogu talagalay asal ahaan cudurku markuu ka bilowday Wuhan ee dalka China dhaqaatiirta marka la fiiriyo guud ahaanba adduunka fikirro kala duwan ayay ka qabaan talaalada maxaa yeelay arrintu waa arrin cusub oo aan ahayn arrin hore loo ogaa taasina waxa ay keentay weliba talaalada qaar oo loogu talagalay 10 sannadood in lagu ilaaliyo oo markaas soo saarkooda lagu diyaariyo in ilaa 10 bilood 11 bilood ay noqotay in markaas lagu diyaariyo taasoo iyada lafteedu degdega oo la eegayo xaaladdu sida ay tahay talaaladu waxa ay ka siman yihiin shirkadaha kala duwan ee Moderna, Pfizer iyo BioNTech, AstraZeneca iyo waliba Sputnik oo dalka Russia, Sinovac iyo Sinopharm oo ah dalka China in dhammaantood marka tan koobaad lagu talaalo maanta 3 toddobaad kadib loo baahan yahay qaybta labaad in la qaato midowga Yurub ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen soo daahida la soo daahiyay talaaladii doosiskii la rabay in la geeyo wadamo reer Yuruba taasoo walaac xoog la muujiyay Pfizerna looga fadhiyo inay arrinta ilaaliso ay gaf ku taabay sheegeen wadamada ay ballanta la gashay waqtiga ku haboon doosiska inay keenayso markaasi talaalka ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa waxa uu yiri lama aqbali karayo ballanta ay ka baxeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyo waliba AstraZeneca oo ay ahayd inay waqti kooban ay ku keenaan doosiskii talaalka si loo qaato Conte waxa uu shaaca ka qaaday Pfizer in ay tiri waanu keenaynaa laakiin aanay keenin taasina ay keeni doonto buu yiri dawladda Talyaanigu inay ku laabato barnaamijkeedii dhinaca talaalka AstraZeneca iyada Yurub hay-adeeda dhinaca caafimaadka iyo waliba daawadu ma aanay ogolaan waxaana la filayaa bishan aynu ku jirno aakhirkeeda inay ogolaato laakiin haweeneyda madaxda ka ah midowga Yurub oo lagu magacaabo von der Leyen iyo waliba gudoomiyaha golaha midowga Yurub Charles Michel ayaa labadaba waxa ay sheegeen in loo xaqiijiyay in 3 bilood ay ugu horeysa sanadka 2021 Pfizer ay ku soo dhameystiri doonto guud ahaanba ballantii ay reer Yurub la gashay oo ah talaalka waqtigii ku haboona inay keento reer Yurub Pfizer iyo BioNTech waxa ay ka dalbadeen ilaa 600 milyan oo doos iyadoo waliba laga filayay ilaa bisha Maarch ee bisha 3 ee sanadkan 80 milyan oo doos inay Pfizer iyo BioNTech ay keenaan reer Yurub dhinaca kale marka la fiiriyo wadamo reer Yuruba ayaa culays xoog leh waxa uu ka haystaa dhinaca coronavirus-ka iyo saameynta uu ku yeelanayo haddii ay tahay soo ridashada iyo waliba dhinaca kale ee xagga dadka u dhimanaya taasoo waliba culays xoog leh uu ka yimid dadka isu soo baxayaasha ah ee iyagu mar walba ku soo qamaamaya jidadka ayagoo diidan in dadka la kala celiyo oo la kala xanibo iyo habeenkii bandowga
waddanka Netherland oo ka mid ah wadamada reer Yurub ayaa waxaa la arkayay sabtidii la soo dhaafay dhamaadka toddobaadka inay isfara saareen booliiska iyo weliba dadka iyagu ku soo qabaamay wadooyinka kuwaas oo weliba gubay gawaarida iyo mootooyinka booliisku u leeyahay dhinaca kalena xoog ku galay meelo badan oo cuntooyinka lagu iibiyo muraayadaha dukaamada jajabiye iyo arrimo badan oo aan loo baahnayn ra'iisul wasaaraha waddankaasi Netherland Mark Rutte waxa uu yiri arrinta ku saabsan in la dhibaateeyo dadka alaabtooda iyo dukaamadooda iyo booliiska gawaaridoodu inaanay ahayn isu soo bax caadi ah balse ay tahay dambi la galay waxa uu yiri tallaabo adag ayaanu ka qaadanaynaa qolyaha iyagu ka faa'iideysanaya arrintaas waana in loo hoggaansamaa buu yiri arrinta ku saabsan cudurka coronaviruska xanibaadiisa ciddii xanibaadda cudurka coronaviruska dagaal kula gasha ciidamada ammaankana waxay ka dhigan tahay buu yiri iyagoo dembiyada caadiga galay qofka la arka bannaanka isagoo jooga habeenkii marka laga bilaabo 9 fiidnimo ilaa aroortii 4 iyo barka subaxnimo ayaa waxaa lagu ganaaxayaa lacag gaaraysa 95 euro iyadoo weliba mar labaad iyo mar saddexaad haddii la qabto tirada ganaaxu ay markaas badan karto guud ahaan waddankaasi Netherland marka la fiiriyo muujadii koobaad ee cudurka ee horaantii 2020 culays xoog leh ma jirin laakiin iminka Yurubta kale ay la wadaagaan culayska xoog leh oo ah dadka faraha badan ee cudurku uu ku dhacayo ee uu soo ridinayo iyo dhibaatada uu leeyahay markaas waddankaas Sri Lanka oo kamid ah wadamada cudurka uu saameynta ku yeeshay laakiin dad badan aanu ka laynin ayaa wasiirkooda caafimaadka haweeneyda lagu magacaabo Waniyaraji waxa lagu sheegay in laga arkay cudurka coronaviruska haweeneydaas wasiiradda caafimaadka ee Sri Lanka waxay ahayd mid hore iyadoo u sheegtay inay jirto sharoobada la cabo oo herbal ah oo lagu hortagi karayo cudurka coronaviruska taasoo la yaab ku noqotay dad badan laakiin haddana dad badan ay ku qamaameen tuulada ama xaafadda laga sheegay sharoobadaasi herbalka in laga helayo iyada lafteeda oo sheegtay inay adeegsatay ayaa laga arkay cudurka coronaviruska oo isgooriyeysay waddanka Sri Lanka ilaa iyo 4 wasiir oo kamid ah wasiirada dawladda ayaa cudurka coronaviruska uu ku dhacay waxa cudurka coronaviruska talaalkiisa AstraZeneca ay dalbadeen oo ogolaadeen maamulayaasha caafimaadka ee waddanka Sri Lanka iyadoo loo daabuli doono oo dabcan laga daabuli doono halka ugu dhow oo ah macadka lagu magacaabo Serum oo ku yaala dalka Hindiya oo Oxford iyo weliba AstraZeneca talaalkooda laga soo saari doono Sri Lanka marka la fiiriyo guud ahaanba cudurku waxa uu ku dhacay dad gaaraya 58430 waxaana Sri Lanka cudurku maalintuu bilowday ilaa maalinka maanta uga dhintay dad gaaraya 283 ruux dalka Hindiya oo kamid ah wadamada cudurku uu saameynta ku yeeshay ahna dalka labaad ee ugu soo ridashada badan dalka saddexaad isla markaasina ugu dhimasho badan ayaa waxa ay bilaabeen talaalkii ugu tirada badnaa abid adduunyada marka la fiiriyo inta cudurka coronaviruska laga talaalayo ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxa uu sheegay toddobaad ka hor in la talaalayo guud ahaanba bulshada reer India oo tiradooda ay kor u dhaaftay 1 bilyan iyo 300 milyan oo ruux Narendra Modi waxa uu yiri waxaanu ku dadaalaynaa inaynu talaalada gaarsiino guud ahaanba gobolada kala duwan ee waddankaasi India dalka Hindiya waxay ogolaadeen dhowr talaal oo ay kamid yihiin 2 talaal oo dhinaca gudaha ah oo ah talaal kale ay soo saarayso shirkadda lagu magacaabo Covishield iyo talaalka kale oo ay soo saarayso shirkadda kale ee lagu magacaabo Covaxin labadaas shirkadood waa gudaha waxa kaloo Hindiya ay ogolaatay talaalka AstraZeneca iyo Oxford ay soo saareen iyadoo weliba laga soo saarayo macadka lagu magacaabo Serum oo ku yaala dalka Hindiya heshiis ayaa jira u dhaxeeya AstraZeneca iyo Oxford qolyaha talaalka iyo dalka Hindiya oo ah macadkaas inuu soo saaro ilaa iyo 1 bilyan oo doos oo loogu talagalay wadamada dhaqaalahooda aanu ficilin ama jabka aan buurayn si markaas lacag yar looga siiyo Hindiya marka la fiiriyo waa dal aad u ballaaran guud ahaanna cudurkan coronavirus intaanu imanba waa waddanka ugu badnaa ee talaalka adduunka laga soo saaro 16 nooc oo talaal ayaa laga soo saaraa taasoo loo arkay India talaalada adduunka inay soo saarto 60% ayna geyso wadamo ka badan 123 wadan iminka talaalada ay iyadoo gaarka u soo saaratay India waxay heshiis kula gashay wadamo dhowr oo ku yaala gobolka iyo kuwa kale oo aan u dhaweyn taasoo macnaheedu uu noqonayo sida shirkadaha kale talaalkoodu inuu gaarayo amaba hore uu u gaaray wadamo ay kamid yihiin Bangladesh, Myanmar iyo weliba Mauritius iyo Seychelles arrintaas ayaa waxaa loo arkaa tallaabo horumar xagga caafimaadka oo ay gaareen qolyaha caafimaadka ee reer India
dad badan oo Indiya degan ayaa waxa ay naqdinayaan iyadoo waqti aan la siinin ku filan talaalada la soo saaray ee dalka Indiya laakiin maamulayaasha caafimaadku waxay leeyihiin waa laga baaraan degay waa laga fiirsaday waqtina waa la siiyay waana la hubaa labada talaal ee dhinaca gudaha in ay wax ka tarayaan guud ahaanba cudurka coronaviruska reer Indiya maamulayaashooda caafimaadku waxay sheegeen sanadkan aynu ku jirnay 2021 inay talaali doonaan ilaa iyo 300 oo milyan oo ruux oo reer Hindiya ah marka la fiiriyo haddaba guud ahaanba adduunyadu walwal xoog leh ayay ka qabtaa faarisidan kala duwan ee ah kii Wuhan ee China ka bilowday kan Brazil ka bilowday kan UK ka bilowday iyo kan South Africa ka bilowday dhammaantood waa wada virus waa corona laakiin waxa la leeyahay kuwa saddexda ee dambe aad ayay u faafaan dadka da'da yarna way ku dhacaan sida soddonaadka iyo waliba labaatanaadka dhinaca kale talaaladii ayaa socda waxyaabo badan ayaa isbarbar socda xaalku ma qumana balse waxa la eegi doonaa sida ay ku dambeeyaan ishana waa lagu hayn doonaa waa fariintii toddobaadkiiba 2 maalmood ee cudurka coronaviruska maalin kasta oo talaadaha maanta oo kala ah iyo maalin walba oo jimco ah biidnillaahi kariim marka hadaba aynu fiirino fariinta waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leighton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmar Barqadle waxa kale oo bulshada u hayaa guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana laga xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badino nadaafadana aan ku dadaalno محمد أحمد حاج عقمنيجي بهذا التلفزيون كعالمي يونيفرسال وقابلسن arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah